assalaamu calaykum maanta waxaan ka hadlaynaa turkistaanta bari ujeedku waa inaan wax ka ogaanno xaaladda muslimiinta dhulka east turkistan ee ku jira gacanta shiinaha waana mid ka mid ah qadiyadaha ugu naxdinta badan waqtigan inta badan dhalinyarada muslimiinta waxba kama yaqaanaan xaaladda walaalahood reer turkistan waxaa laga yaabaa inaadan rumaysanin haddaad maqasho in ay soomaan waa ka mamnuuc in ay qur-aanka bartaan sidoo kale waa ka mamnuuc si qasab ayaa lagu afuriyaa qofkii sooma saxafi masri ah lagu magacaabo fahmi huweydi ayaa dhowr sano ka hor booqday kadib caqabado badan wuxuuna yidhi hadiyadda ugu qaalsan ee aad u gudbin karto muslimiinta iyo goorka waa kitaabka qur'aanka sababtoo waa ka mamnuuc in lagu daabaco ama la geeyo halkaas ku soo dhowaada mawduucan ku saabsan qadiyadda turkistan inta aanan mawduuca bilaabin fadlan 5 ilbiriqsi hoos u yara deg kadibna gambaleelka ku dheggan sabskraybta meesha ay ku qorantahay ku dhufo si aad u maqasho cod mar waliba aan muuqaal cusub soo gelina kanaalka ku soo dhowaada mar labaad mawduuceena maanta maabka shiinaha markaad sidaan u fiiriso waa arrin kuula muuqda mid caadiya laakiin markaad ogaato in qaybtan ay ku qoran tahay east turkistan in ay tahay dhul xoog lagu qabsaday oo dadka degayna shiinays ahayn kuna hadal af shiinays ku diiniya ku asalna ahayn laakiin la haysto marka koobaad aan ku bilowna macluumaad degdeg oo ku saabsan turkistaanta bari turkistan waa dhulka muslimiinta ee goorka turkada ee dhaco bartamaha aasiya taariikh ahaan waxay ahayd dhul ahmiyad weyn leh waxaana mari jiray waddadii lagu magacaabi jiray waddada xiriirka oo ahayd waddo caalamiya oo badeecada la isugu gudbiyey caalami ahaan turkistaanta bari waa dhul aad u baaxad weyn bad gaaraya 1,800,000 kilomitir square waa bad ku dhowaad 2 mar ka weyn dalka masar waxaa xuduud lala turkistaanta bari dhinaca waqooyiga ruushka iyo kazakhistan galbeedkana qirqiizistan iyo taajikistan waqooyi barina mongolia koonfur galbeedna afghanistan iyo kashmiir koonfurtana hindiya iyo tibet oo ah sidoo kale dowlad jiri jirtay laakiin shiinuhu qabsaday iyo weliba waxaa xuduud kale dhinaca koonfurta waddanka shiinaha turkistaanta bari waxaa magacan loogu bixiyey si looga sooco ama loo cabiro meesha ay ka dhacdo mandiqadda shucuubta turkida ee aasiyada dhexe oo ah bariga shucuubta turkida ama si looga sooco weliba turkida anaadool ama waddanka turkiga aan naqaano turkistaanta bari waa dhulka muslimiinta iyo goorka ku xisaabsan aqwaamta turkida kuna hadla af turki laakiin waxaa xusid mudan in turkida anaadool ama turkiga aan naqaano fahmaan lahjadda iyo goorka inkastoo farqi lahjadeed u dhexeeyo laakiin asal ahaan waa isku hal luuqad af turki turkistan waxaa loola jeedaa dhulka turkida east turkistan bariga dhulka turkida shacabka muslimka ee igoorka iyo shiinayska waxaa u dhexeeya farqi weyn dhinac walba wax iska galayna ma lahan luuqadda diinta iyo dhaqanka turkistan waxay ku xisaabsan tahay aasiyada dhexe shacabkeedana waa mid ka mid a shucuubta turkida sidaan soo sheegnay waana mid ka duwan shiinayska turkistan waxay daris la tahay 2 ummadood oo aanan jeclayn taariikh ahaan muslimiinta ruushka iyo shiinayska waxaana dabiici ah inay la kulanto duulaan kala duwan ooga imaanayo labadaas ummadood east turkistan waxay ahayd manaarad xadaaradda islaamka ka taagantay oo ifayso waqti hore ayayna diinta islaamka qaateen igoorka duulaanada shiinaysku wuxuu bilowday 1759 xaalkuna wuxuu ahaa in marna shiinaysku qabsadaan marna laga saaro marar badan ayay igoor ku jebiyeen shiinayska dhulkoodana ka horeeyeen 1911kii ayay shiinaysku mar kale duulaan ku qaadeen turkistaanta bari waxayna si xooga ugu soo dareen dhulka shiinaha laakiin 1933dii waxaa dhacay kacdoon keenay in shiinayska laga ceyriyay turkistan waxaana looga dhawaaqay halkaas jamhuuriyadda islaamiga ee turkistaanta bari muddo kadibna waxaa magaca loo bedelay jamhuuriyadda turkistaanta bari waxayna ahayd 1944 waa dhammaadkii dagaalka labaad ee adduunka laakiin shiinaha iyo midowgii suufiyeedka oo wada socda ayaa duulaan wada jir ah ku soo qaaday turkistan waxayna soo afjareen ugu yaraan si ku meel gaara rajadii shacabka muslimka in ay helaan xorriyad in ay waddankooda ay maamulaan oo ayna hoos imaanin ummado arxan daran laakiin rajadu weli way taagan tahay in maalin uun waaga xorriyadda u soo baxo turkistan waaga uu sugayo iftiinkiisa qof walba oo ku nool turkistaanta bari dhacdooyinkaas taariikhiga markaan ka soo gudubno aan u imaanna xaaladda hadda ka taagan turkistan iyo sida ay u nool yihiin muslimiinta iyo goorka inta badan qadiyadda turkistan waxaan warbaahinta ka maqalnaa
ramadaanka xilli walba oo ramadaan ah waxaa caadiya inaan ugu yaraan qodob ku saabsan warbaahinta ka maqalno ama ka aragno sababtoo ah xilliga ramadaanka dhibaato fool xun ayuu shiinaysku ka geystaa Turkistaan soonkana waa ka mamnuuc barashada iyo akhrinta qur'aankana warkeeda aan ku bilowno dhibaatada bil kasta oo ramadaan lagula kaco iigoorka reer Turkistaan bilashada bisha ramadaan waxaa la socda digniin ay baahiso warbaahinta shiinaha gaar ahaan kuwa ku wajahan Turkistaan oo ay shiinaysku u yaqaanaan mandiqada Xinjiang digniintaasoo ah in muslimiinta aysan muujinin shacairta islaamka uguna horreyso xilligaas soomidda bisha ramadaan tallaabooyinka xukuumadda shiinaha ku kacda waxaa ka mid ah in si qasab ah albaabada loogu furo maqaayadaha bisha ramadaan kuwa muslimiinta sidoo kale ardayda jaamacadaha iyo iskuullada ayaa lagu qasbay inay cunnada cunaan si loo ogaado inay sooman yihiin iyo in kale ardaygii ku adkaystaa ama qofkii ku adkaystaa inuu sooman yahay waxaa la mariyaa ciqaab adag arrinka mamnuucidda soonka waa mid inta badan warbaahinta caalamka ka hadasho waddamada muslimka iyo kuwa galbeedka xitaa warbaahinta galbeedka si weyn ayay oga hadashaa arrinkaas kuwa soomaalida ma ka hadlaan isweydii marka hore TV loo furay in xayeysiin lagu sameeyey keliya waa maxay qadiyadda iyo mabaadida uu ka hadlaayo haddaan Soomaali nahay ma haysana warbaahin midaas weligaa niyadaada ku jirto in aanan lahayn warbaahin waa inaan baranaa sidaas darteed luuqadaha kala duwan si aan ula socono warbaahinta caalamka inta aan ka helayno warbaahin Soomaaliyeed halkan waxaan kugu soo gudbinayaa waxa warbaahinta caalamka ee kala duwan ee ka qortay arrinka in muslimiinta iigoorka reer Turkistaan laga mamnuuco inay soomaan bisha ramadaan Sky News qaybteeda Carabiga Al-Azhar wuxuu cambaareynayaa ka mamnuucidda muslimiinta Turkistaan in ay soomaan sidoo kale warbixin soonkii hore lagu daabacay wargeyska Ingiriiska Independent ayaa leh shiinaha oo muslimiinta ka mamnuucay bisha ramadaan inay soomaan sidoo kale BBC Al-Azhar wuxuu cambaareynayaa ka mamnuucidda muslimiinta iigoorka inay soomaan mar labaad wargeyska Independent ee Ingiriiska shiinaha oo muslimiinta ka mamnuucay in ay soomaan mamnuucidda soonka waxaa la socda tallaabooyin aad u liito sida in aanan la akhrin karin qur'aanka kariimka iyo in guryaha muslimiinta loo diro rag jawaasiisa qowmiyadda hanka ee shiinaha inta badan ka kooban yahay ee boqolaalka milyan ayay xukuumadda shiinaha ku soo gurtaa kuna dhiirigelisaa in ay degaan Turkistaan si loo bedelo waxa lagu magacaabo dimuqraafiyadda waliba taageero gaar ayay xukuumadda shiinaha siisaa shiinayska degaayo Turkistaan waxaa kaloo dheer in la kontaroolo dhalmada iyo taranka muslimiinta ujeedka xukuumadda shiinaha waa in mustaqbalka iigoorkan muslimiinta reer Turkistaan ay dabar go'aan kadibna u soo haraan meesha shiinayska hanka Turkistaan waa dhul aad iyo aad qani ugu ah khayraad kala duwan gaar ahaan batroolka shiinaha uu soo saaro inta badan ama dhammaan waxaa laga keenaa Turkistaanta bari waxaan rajeynayaa inaad wax ka ogaateen qadiyadda walaaliin reer Turkistaan iigoorka intaas ayaan ku joojinaynaa maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh